nin gaala oo qoraaya yaa buug boqoriyay ilmihiisiba mashquuliyay wuxuu damcay ilmahan inuu isaguna iska mashquuliyo khariidad caalamku ku qoran map waad fahmaysaa khariidada sooma iyo soo qaaday uu jaxjaxay uu kala daadiyay wuxuu yidhi aabba khariidada sideedii ku soo celi waxaad doontaan ku siinay waa ilmo yar ismale uu isku keeni doonaa markiiba intuu qolkan la galay ilmo yar isku keenay uu soo koolay kool buu soo mariyay scotch markiiba uu keenay aabihii wuxuu mooyada baad ula tagtay ku sheegtay may ana sameey ma walaasha baad ula tagtay iyada jaamacada dhigato taqaanay wadanadu si isku xigaan oo isku keentay may aabba ana sameey iyo sidaad u garatay sheeg waxaan ugu tala galay hayd buu yiri saacadan dhan inaad igaga mashquusho aniguna intaan wax qorayna ma wax akhrinaayo wuxuu aabba xaggan baad adigu eegtay caalamku ku maabka caalamku ku sawiran yahay xagga kale sii jeedka qof bini aadana ku sawirnaa buu da qofkii bal isku geegayay buu gacantii lugtii xaggan soo baahade xagga markay saxiin noqotay isku dhajiyay xagga dambana waxay noqonaysaa sax ninkii qoraabu ahaa wax qoraya buug dhan buu ka alifay baa leeyahay wuxuu yiri caalamka in la hagaajiyo waxa ka awlaysan in bini aadanka horta la hagaajiyo haday bini aadanku hagaagaan caalamkuna marka bini aadanka maxaa hagaajiyo marka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن جسمه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله والله زيارته inay sida ka fududahay baan moodayaa anigu iyo dana mar hadii salaadii la wada tukaday oo Ilaahay masaajidkaas inagu kulmiyay inaan kalmad in anfacda oo ka hadlaaya laftigiisu u baahan yahay kala la hadlaayana uu baahan yahay aan isnidhaano inteena macaan ayaa mar walba inagu baraarujiso ina faraysa salaadii baan ka baxnay deedna waxa la inoogu yeeray wacdi waa la inoo dhameeyay hadii dadku ay wax ku qaadanayaan kafa bil maut wa'idha wacdi waxa kugu filan janaazada aan ku tukanay ee la sii qaaday la sii galbinayo ayaa wacdi waana inoogu filan wa xaq weeyaan xaq baa leena tusay وانا وضع ما ركتاني قف والبا ومري دونه ويان waayo qof kasto adduunkan yimiday wuxuu yimiday isagoo bila dhar ah waxa uu ka bixi doonaa isagoo qofku bila dhar ah in malqabeena oo Hadramiya oo magaalada Jabuuti dadkii masaajid ugu horeysay ka dhisay kamid ahaa oo masaajidkan magaalada bartamaheega ku yaalana dhisay darab badan oo waqfiyana masaajidka u dhaafay oo uga tagay ayaa waxa laga sheegaa maalintuu dhimanayay ee sankaraadku uu qabtay wuxuu kula dardaarmay dadkii dhaqaayay meedkiisa inay gacantiisa inta u banaanayaan markaas lagu yiri maxaad uga jeedaa maxaa macnuhu muxuu yahay bal noo sheeg qofka kafanka in lagu wada xidho yalla isku ogaaye gacanta inta ay banaayeen maxaad uga jeedaa wuxuu yiri dadka aqbiyada bila aqliga ayaan tusinayaa buu adduunka inaan waxba laga qaadan ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا
ina aadan hooyadii waxay dhashay isagoo ilmuhu ooyaya oo barooranaya ayay dhashaa laakiin dadka agagaarkiisa taaganna ay leeyihiin maasha Allah wiil baa dhashay gabadh baa noo dhalatay wiil baa reerka ku soo biiray iyagu way faraxsan yihiin laakiin mawluudka dhashay wuxuu la yaaban yahay caalamkan uu yimid buu la yaaban yahay caalamul rahim buu ka soo baxay wuxuu yimid caalam leeyahay magaciisa caalamud dunya caalamul rahim si gaar ah u noolaayo sidaan adduunyada dusheeda aad ugu nooshay ka duwan caalam wuxuu yimid sidii uu ku noolaa si ka duwan loo noolaan doono waxna ma yaqaano waa u jeedaa meel cusub inuu yimid ku soo dhacay marka isagu uu ooyaya ilmuhu markuu dhasho baqaaq laakiin dadku way faraxsan yihiin iyagu fahfad li nafsika an takuna idha bakaw fi yawmi mawtika daahikan masrura inta yareed adduunyada joogtid maalinta dhalatay ilaa inta dhimanaysa inta u dhaxaysa oo waliba taariikhdaasi ay tahay taariikh laga qariyay adiga laguma sheegin in taariikhda dhimashada laga qariyana waa min rahmatihi bay kamita ilaahay naxariistiisa kamita intaas la doonayo qofku inuu ilaaliyo hadafkii adduunka laga lahaayay loo keenay inuu ilaaliyo laga rabaa hadduu qofku hadafkii loo keenay adduunyada dusheeda uu ilaaliyo maalintuu adduunyada ka baxayo wuxuu ka bixi doonaa isaga oo faraxsan dadkuna agtiisa ay baroordiid iyo oohin iyo maaragtaanay ay murugoonayaan dadku waa murugoonayaan maalintaas qofku adduunyada uu ka baxayo laakiin muuminku adduunka wax uu ka baxa isaga oo faraxsan marka mawdka aan aragnay ee ku tukanay waa xaq weeyaan waana intaas ay noogu filanba Rabi' ibn Khaytham rahmatullahi alayhi nin la oran jiray oo salafu hadii lumma kamid aha ayaa habeenkii baa la yiri ma seexan jirin wuxuu ahaa qaa'im al-layli saa'im an-nahar habeenkiina qiyaam maalinkiina soom buu taagnaa inantii uu dhalay baa ku tiri aabba habeenkii dadkoo dhan way seexdaan adiguna iska jiifo iska seexo wuxuu yiri aabbaha naar buu ka baqayaa buu naar rajulun tuzayyanu al-jannatu fawqahu wa tus'aru an-naru tahtahu fa kayfa yanamu baynahuma buu yiri nin dushiisa jannadina lagu qurxiyay oo lagu diyaariyay hoostiisana jahannamo lagu horinayo iyadana dad loogu tala galay oo lagu diyaarinayo labada daar dhexdooda sidee buu qofku u gami karaa buu yiri ragaasi int iyagu adduunyada dusheeda ku nool bay isdileen iyagu maxay isku dileen Allah ka cabsi maxay isku dileen cibaado maxay isku dileen inay Ilaahay daacadiisa ilaaliyaan maxay isku dileen diyaar garow la maalintaas ay la sugayeen kana saxaabiga Miqdaad radiyallahu anhu ayaa habeenkii majlifan ma seexan karin sadabiyuhu markay dabku dhariga la saaro ay u karkarmaan ay isku rogaan ayuu habeenkii faraashka dusheeda saas ku rogi jiray markaa bay xaaskiisu ku oran jirtay Miqdaadow iska seexo markaa buu oran jiray cabsida aan naarta aan ka baqaaya hurdadiga ka xaysay buu oran jiray nabigeena alayhi salaatu wasalaam hadigiisii weeyaa dadku inay baqaan habeenada kamida Aisha radiyallahu anha ayada nabigu agteedu jeefay habeenka saqdii dhaxay marka ayay gogashii taabato nabigii bay weydi alayhi salaatu wasalaam way markaas ay fariisatay aqalkii bay ka dhaxeegtay ma dhex joogo aqalka nabigu aqal weyn ma hayn aqal wuxuu ahaa markuu nabigu qiyaam leelka uu kaco markuu sara joogana ma aragtaan Aisha ay lugaheega fidsanaysay markay sujuud iyo rukuucda nabigu soo gaadhana Aisha nabiga lugaheega ka laabanaysay aqalka intuu la ka marka wad garan kartaa Soomaa waa beedkii nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam
وانا ماشي النبي انه هذا ونبي يا ابو بكر يا عمر يكون اسيهين marka Aisha radiyallahu anha waxay tiri waan waayay nabiga markaasaan ghira maseer waan maseeray tiri waan hinaasoo waxaan is iri malaha nabigu intuu adiga ka hadul gooray buu dumarkiisii kala u tagay ilaa xadiista nabiga waxa ku taala nabigu reerihiisa waxa ilaahay nabigu awood galiyay sagaalka dumaraba nabigu habeen kaliya isku mari jiray moogta haduu doono quwadda buu nabiga ilaahay siiyay markaasaan kacay bay tiro waan waayay aqalkii dibadii waan ka waayay waxaan arkay qof shakhsi xabaalaha baqic xaqooga u sii jeedo oo taagan marka aayad inta soo baxay baan yaa nabiga gadaashiisa istaagay markaan gartay nabi maxamed inuu isagii yahay qaburuhu nabigu dul jooga fikiraya ayakiibu u ducaynaya qabrigu ka fikiraya aakhiradu ka fikiraya nolosha dambu ka fikiraya markaasaan iscanaantoon idhi Aisha maanta waad baaday bal adigana maseer baa ku hayo waxaad isleedahay nabigu reerihiisii kale u tagay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam hurdadii intuu waayay murug darteed isagoo aakhiradiisa u diyaar garoobaya oo la kulanka ilaahay ku xisaabtamaya oo bashariyada adduunyada ku nool haddana ka fikiraya sidee naarta uga badbaadi lahayd ayuu nabigu qabuurihii tagay adiguna dareen kale la soo kacday waad khasaartay markaa bay soo dhuumatay oo waxay tiri bal inuu ku arkinuune iska jiifo markaa bay gogosha ku soo noqoto maradii bay saartay uu arkaya nabigu alayhi salaatu wasalaam min khasaa'is an-nabiy waxa kamid ahayd bal nabiga khasaa'ista ilaahay uu siiyay sida nabigu xagga hore wax uga arko xagga damban wax uga arkayay arkay markiiba isagoo soo daymo buu nabigu arkayba markaa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam uu yimid oo kiciye Aisha maxaa ku helay buu ku yidhi adigii soo jeeday markaa bay tiri yaa rasuulallah anaguna haween baan nahay tiro meel kale ka fikiraynaa adiguna nabi macsuum oo rasuulato meel kale ka fikiraysaa bay ku tiri anta fi waadin wa nahnu fi waadin bay ku tiri shabta baa nabiga lagu yidhi waad gabowdo ciradii baa kugu badatay wuxuu yidhi shayabatni huud wa akhawaatuha buu yidhi suuratu huud iyo walaalaheed baa cirada iga keenay buu yidhi waa suuratu huud waad garanaysaan suuradaana bay culimadu yiraahdeen aayadda nabi maxamed cirada ka keentay waa aayade wa fastaqim kama umirta wa man taaba ma'aka ila aakhirkeeda fastaqim baa nabiga lagu yidhi ku sugnow ku toosnow sidii adiga lagu amray ee rabbiga uu ku amray wa man taaba ma'aka maaha waliba adiga kaliga inaad istiqaamada laga rabee cid aliya cidii adiga ku rumaysay ee ku raacdayna inay toosnaadaan ee qumanaadaan baa laga rabaa baa ilaahay yidhi سورة هود ولا لهد وسورة وسورة عامة سورة النبأ سورة النازعات سورة انفطرت إذا السماء انفطرت إذا الشمس كورت إذا السماء انشقت جزء عما هداد يكتان waxaad ugu tagaysaan waxay ka waramayaan suuradaha juz'amaha ku yaalo dhan imma ilaahay cadamadiisa imma aakhirada imma qiyaamaha imma jannada imma naarta intaas ku wareegan intooda badan malaha suurada ama laba suuradood baa laga soo daray qisadii nabi Muuse alayhi salaam mawduuca nabi Muuse tikir doonaya inuu arka banka qiyaamay isagoo taagan ama qiyaamihii inuu wax ka fahmo ninkii doonaya bay asxaabtu oran jireen juz'amaha akhristo ana waxa uu ka waramayaa juzkaasi intiisa u badan waa intaas maalin habeen baan ku yiri carruurtayda bal inta mawduuca ilaahay uu kaga waramay juz'amaha min suurat naas ila laga gaaro suuratu amma inta meelooda ilaahay uu ku sheegtay samada annaka abuurnay cirk dhulkana annaka samaynay soo saara baan ku yiri 19 mawduuc ka sheegay 19 mawduuc eedaadana ayaa ilaahay ku sheegay cirkana ana samaystay dhulkana ilaahay baa abuuray maxaa ilaahay u sheegay ugu celcelinaya maxaa qiyaamaha loogu celceliyay maxaa jannada loogu celceliyay sheekadeeda maxaa naarta loogu celceliyay maxaa aakhira inay jirta lagu celcelinaya waxa halmaamin weyna ha iloobin
waxaad ahaataa mid mar walba la soo taagan xasuus. haddii maydkaa maanta aad aragtay la sii sido beritol adiga lagu sii sidaa. yadhab alwalu falwal wayabqa alaakhiru laa xilma lahu. abu dardaa baa odhan jiray markuu mawdka arko, uqduu fa inaa raaxuun aw ruuxuu fa inaa qaaduun mawcidatan baliiqa wagaflatan sariica. yadhab alwalu falwal wayabqa alaakhiru laa xilma lahu ay laa caqla lahu. lag caraaba buu odhan jiray, annaguna waan ka soo daba kallahaynaaye, ama la kallaha annaguna gallinka dambow maan ka daba imani doonaaye. midkii xagga ajasha ugu horreeyey buu socday, waxaase adduunyada ku hadhay buu yidhi abuudar, ninkii bilaa caqliga adduunyada ku hadhay buu yidhi aan fikirayn. kafaa bilmowti waacida, waano waxaa kuugu filan iyo naseexo mowdkoo lagu sheegaa kuugu filan. mowdood aragtayba waana kuugu filan, kuwaana qaado, kuwaan tow. haddaad geerida kuwaana qaadanayn markaa maxaad kuwaana qaadan oo kale markaas. xasan albasri baa arkay nin qabri dusheeda cunto ku cunaaya, kaa qalbigiisaa dhintay buu yidhi, ma noole buuhi qalbigiisu. kafaa wuxuu yidhi almowtu bayna caynayhi wayashtahi acaam buu yidhi, ma ninka mowd u jeeda geeri qof bini aadan oo dhintay arkaayo la duugaayo ee haddana cunta u dhadhamayso, kaa qalbigiisaa dhintay buuhi, ma noole buuhi kaas. innakana zamankeenna dareenka waa nagu yaraaday, fikirkaas waa nagu yaryahay maanta. la kulanka ilaahay dareenkaas waa nagu yaryahay. la kulanka aakhirada inaan aakhiro kulligan istaagaynaa fikirkaas waa nagu yaryahay. jannada iyo naarta dareenkeedii waa nagu yaraaday. rabbulcaalamiin inaan la kulmi doono, yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin waqifuuhum inahum mas'uuluun uxshuruu aladiina dalamuu waaswaajahum wamtaazuu alyowma ayuha almujrimuun alyowma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimuna aydiihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yagsibuun yowmaidin tucraduun laa takfaa minkum khaafiya baa ilaahay yidhi. qur-aanka aad baa loogu celceliyey maalinkaas. hawlkiisa hawl waxaa dhib ina sugaysa. ilaahay baa la hor joogsan doonaa. ilaahay baa dadkao dhan loo joojin doonaa hortiisa saf. markaasaa weliba ummad walba nebigeedii la hor joojin. wa taraa kulla ummatin jaathiya tudca ilaa kitaabiha alyowm wajii'a binnabiyiina washuhadaa. nebi kastaa la keeni, shuhadadii baa la keeni. man hum shuhadaa? waa katabadii, malaa'igta camalka qoraysa baa la keeni. kitaabkii camalkaaga lagu qoray baa la keeni. ma arkaysi kitaabka hadda adigu, laakiin waa la keeni. waxaaba soo bixi doontaa banka qiyaamadood kitaabkaaga halkan ku sita. joojiya waa la su'aali. maxaa la su'aali doonaa? 4 al qofka la weydiin doonaa. cimrigaaga maxaad ku soo dhammaystay? cilmigii ilaahay ku bara maxaad kaga camal fashay? dadku ila waa mid akhriya oo qora, midna waa mid dhegeeyo culummada dhegaysta. zamankana aalaadkan waxayba soo dhoweeyeenba dadkao dhan. maanta qof aqoon malihi oo odhan karaa way yar tahayba. mas'alad ma jirto ilaa culummadu way duubeen maanta. hadday cibaado ku ay ka hadlaysa iyo hadday xuquuqdii ilaahay ka hadlaysa iyo hadday xuquuq alcibaad ka hadlaysa iyo hadday axkaam ka hadlaysa iyo hadday cilm almiiraas faraa'id cilm alfaraa'id ay ka hadlaysa iyo hadday xuduud ka hadlaysa iyo maa min mas'alatin ilaa waqad sujilat. waa la duubay maanta. marka cilmi wixii ilaahay ku baray ama waad maqashay ama waad qortay ood akhriday waa lagu weydiin. dhallinyarnimadaadii waxay kugu soo dhaafteen waa lagu weydiin doonaa. maanta halkee dhallinyaradeennu ku socotaa? la mujtamaceena 70% waa dhallinyare. halkee ku socdaa? dhallinyarnimadii waa nicmo ilaahay ku soo mariyey. hadday ku dhaaftana ma soo noqonayso. ma dayacday base waad ka qaniimaysatay. cilmigii ilaahay ku baray ma dayacday ood dayacday intood baratay baad iska dhaaftay mise waad ku camal fashood ka faa'iiday. cimrigaagii
ماشي صح ده ما كوب بحيث ماشي دونتا لا ادي العمرك ددكم انت خيارك وجو استعمال سيده دونا بو استعمال العمرك dhaqaalihii adduunyada dusheeda aad ku haysatayna halkeebuna ka soo galay meeshana ku bixisay dhaqaalaha labadaba wala sheegay min ayna iktasabahu ba nabigu halku ka soo galay ma tariiq xalaal kugu soo galay mise tariiq xaraan wala kala saari doonaa wa fiima anfaqahu mahad dhaqaalaha ku bixisay ila shariicada islaamku inta soo nicmadood ba sida loo isticmaalayo way noo sheegtay amriga sida loo isticmaalayo way ku sheegtay dhalinyarada waxaad ku dhamaysanaysa shariicadu way ku sheegtay shaabun nasha fi ibadatillah wa tadabada ilaahay hareyn doonu kamid yahay haduu dhalinyarnimadiisa qofku ilaahay taacadiisa ku barbaaro cilmiga ilaahay ku baray waxaad kaga amal fashay iyo sidaad ugu dhaqmi lahayd ya inaad ku amal fasho umada si bartana waa lagu dhiirigeliyo waa lagu sheegay dhaqaalihi meeshu ka soo galay iyo meeshaad ku bixisana way dambaysaa su'aasheedu waa lagu sheego laga yiri meel xalaal oo dhaqaaluhu ka soo galo haduu meel xaraana ka soo galo adiga ku dhibaato qabay ugu meeshaad ku bixinaysa diintu way ku sheegtay تبيان قرآن كان والتبيان وعدي وحول لكن دتكم ما أنت قرآن كان الرعان وديار ما وحي ديار دتكم ويهين إن عقلك وكسعدان إلى هين بني آدم ككمدين عقلك وده إلهي ومضى علم بوسي علم ولا صورة دعي عقلك يا علمك سرية عقلك علمك سرية عقلك هذو علمي وايو عقل ما عقلك هو آلد ويان إلهي نسيه والله دون قفكن وحكو قرته لكن واحد قراني يسمى الصحبة مسوا غلط ما شاد مرة يسمى الصحبة مسوا غلط واحد عون يسمى حلال مسوا حاران ما شاد وقتك كوب بحين يسمى الصحبة مسوا صحمها وحشيقة وعلمك لذلك بني آدم كإلهي مركو كورمي أبوركوغا دينتا علمك إلهي شيء الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بالليل أبورك إنسان كولا دبدقي وعلى هرمريي برشد القرآن كالهرمريي حق قرآن كبرشد الهرمريي حدينا بني آدم كعلمك شرعك أين الراعن جريتاكو قيمة ماله وين وقو جريتاكو قيمة كويا لنا يا ومركز إلهي قرآن كريم كإلهي نوصو دجيه مركز راعد صدا وكليه لا قرآنكم محوكا ورما صدا إلهي وعبد كليه ما صلاة كليه كما ورما قرآنكم نولاش هذا ودب قرآنكم كورما صادو نولان لحيد حديث النبي يقول شرح قرآنك ويان قرآنك حديث كون شرحايا والله بدأ علماء هذا الكتاب والسنة لا بدأ نمرك قفك بني آدم كوحي وشاقيان الدنيا اللي انت جوجت سيد ولان لحيد حديت حق إله سيد حق إله وجود لحيد حديت حقوق العباد سيد حق بني آدم كسيجود لحيد قرآنك يا حديث النبي أكون شاقي لا بدأ مرك تدخل هذه الراعي ويان وحي كده قلت هاي وما داس وحي دورة عقل هنا يكون صعوته عقلك والله وصعد اللي ماله قوم قالوا ولا إلهي عقلك كوما بدين بقى مصنوعات بني آدم كو أي سمايان قارب وشبان صوص سمايي ما إنكو نقول دا عقلنا أنو استعمال ما يبوق بصور رعي آلات كلمة كاميرا قال لقو دوبا يمد والبا مركز يبسني سكرتون كبوق انت لك بلا صعودة بوق محوت المامية شيء كان قابك الله فريه بكو شيء قابك الله استعماله قابك الله دقي قاب كدون هذا دو استعمال شو دائما نقول عقلك وحبك وما سمي كرتي مروحتنا او يرو markii kartoonka ay ku jirto buug baa la socda qaabka u xid baa lagu oran hadaad aqal isticmaasho ka waran dhinaca kale u rakibto ma soconay baabuurkii gaariga waa la mid halka biyaha ku shub halka saliida ku shub halka naaftada ka shub kala bedel aqliga isticmaal ma soconaya de ma soconayo maxaa u socon waayay de ninkii soo sameeyay siiqadan aad u isticmaalayso uguma tala galin
ninkii soo sameeyey irshaadaad tilmaamaha uu soo raaciyo raac waad ka faa'iidaysan وإلا haddaad tiraahdo xagga iska dhiga ana nin baan ahay ana aqligayga u isticmaalaya deemay adigu waxaan ma sameyn maliid adigu walillahi almathalu la'ala ilahi marka uu kuleeyahay alladhi a'ta kull shay'in khalqahu thumma hada shay walba ilahi uu abuuray shaygan dariiqadii uu isticmaal lahaa noloshiisa ilahi ba ku haday xayawaanku dariiqatu alhayaa ilayhi ilahi ba ku ilhaamiyay ama bini aadamka dariiqad ku noolaanaysa adduunka dusheeda adiga bini aadam maadaama ilaahay ku karaameeyay aakhirana xisaab lagu la sugaayo adiga wuxuu ilaahay kugu talagalay shariicada islaamka inaad ku dhaqanto shariicadaas marka fardi hadda taasad u noolaan lahayd way ka waramaysaa usradaada saad u noolaan lahayd quraanku ka waramaya qoomkaad ku dhaxnoosha saad u dhaqmi lahayd quraanku waa ka waramaya ummad meel degan sidee u dhaqmi lahaydna quraanku waa ka waramaya marka ittibaac ba umada laga rabaa bas wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu ba ilahay wala tattabi'u subul wadooyinka kala hamarina ba ilahay leeyahay wadooyin ba jira la xamaya wada dhuxulad meel ku geeyni maayaan harraacin waxaad raacda aayadaasi fi surati al-an'am samaydeed an'am bay ku taala awaakhirkeega bogoga ugu dambeeya ahkaam fara badan ilahay markuu ka soo waramay qatliga zinada dulmiga ribada xaq ilaahay markuu ka waramay xuquuqda bini'aadamka ay kugu leeyihiin ayaa waxa soo dhaw waxa lagu soo gabagabeeyay dariiqii toosna waa ka sarraacay jidadka yar ee gaagaaban ee meelaha adaragtaan inay ka walaalaxanayaan hamarina ba ilaahay waayo dariiqa mustaqiimka korkiisa ibliis ba fadhiya la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين طريقة مستقيم قدوش سانو فريسن بويدي لأن حقك كيمانا يا حق هوري حق الدنبه حق المدق حق بدح هلي ميسد بدن كودن يكون مهنقان با إلهي يكويدي إبليس عليه اللعنة ونحريست إلهي اللوغة ديريي سجودي آدم عليه السلام وسجود ليدي وسكديدي كاسا دار انتو إلهي كوك مرأي يدي أنا قد طريقة مستقيم كان دح فريسانا يا مركا جد كاتوسا وطريقة سوى قرآنك ودين الإسلام وحكا لما نولا الشهداء الدويدة أتكون نوشاهي من مالين تدالتي لا عدمان يسو قاد كاد أنو لان لحيد بدين الإسلام كوكور دكتي من راعي هذا راعي هذا كنا بضغب أقوم هذا كل باني هذا قفك الراعي وعيون يساقا خساري marka ilaahay azza wa jalla mar walba ilaahay xasuusano yaan ilaahay halmaamin adigaba kuma halmaamay maxaad u halmaamay waxa nicmada haysto isaga arraa ka dhigay buu ku halmaamay arsaaqadii kaamu halmaamin oksijiinka aad u baahday kaama halmaamin jiifaad u baahanta hurdadii uu ku siiyay amnigaad u baahneed uu ku siiyay awlaad buu kugu deeqay caafimaad uu ku siiyay lixaadka kugu yaalla uu ku siiyay kuma halmaamay ilaahay saad markaad u halmaamay marka ilaahay wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum hanqonina ba ilaahay leeyahay ku ilaahay halmaamay deedna ilaahay markay halmaameen amarkii ilaahay markay iloobeen allahi abuuray amarku u keentay adduunka markay iloobeen iyakana waa la halmaamsi maxaa la halmaamsiyay iyaka wixii maslaxadoodu adduunkan iyo aakhira ay ku jirtay waa la garamariyay weeyaan haddaad ilaahay adigu aad ilowdo noloshaada adduunkan iyo aakhira wadaday aad ku hagaajin lahayd ayaa adeegan ilaahay ku garamariyay ogow marka adaa isdayacay ogow ilaahay dadka uma baahno daacada mutiiciintaada ilaahay ka u baahan ma waxa bashar adduunyada joogo dhan haday ilaahay wada aaminaan ay wada caabudaan ay wada rumeeyaan war ilaahay wax ma u beerin karnaa waxba hadii la wada caasiyan waxba ilaahay kama naaqusmaan in takfuru fa inna allaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa kana allahu ghaniyan hamida
haddaad kulligiin wada gaalowdaan baa ilaahay yidhi ilaahay waxa uu ahaaday maa fi samaawaati wamaa fi lardi wa kaana allahu haniyan xamiida hani uu ka deeqtoon yahay ilaahay cibaadadeenna marka inaan ilaahay caabudno innaka u baahan in ilaahay mar walbaan xasuusno innaka u baahan in ilaahay aan adacno innaka u baahan in ilaahay aan raali gelino innaka u baahan in ilaahay xiriir fiican aan la yeelano innaka u baahan waayo noloshaada dhan baa saa ku hagaagaysa marka ilaahay tabaaraka wa tacaala han jeclaanno han ka cabsanno jacayl ilaahay ku caabudo markaa salaada tukanaysid eed soomaysid ee sadaqada bixinaysid ee khayr samaynaysid jannada isordhig oo ridihiisa ku xisaabtan ka cabso ilaahayo shahawaad shaydaanka iyo naftaadu markay macaasi kugu yeedhaan waxaad isordhigtaa ilaahay cadhadiisa xasuuso inuu ku arkaya xasuuso cadaab iyo qiyaamaha xisaab inuu kula sugayana xasuuso labadan baa la doona ilaahay dadku inay ku caabudaan khawfan wa tamaca yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca khawf bay culimmadu yidhahda waa markee marka aad nafta iyo shaydaanku ay macaasida iyo khafladda iyo munkarka kugu yeedhaan naarta xasuuso sidii ninka reer bani israa'iil ahaa ee caabidka ahaa isagoo keligii meel ilaahay ku caabudaya naag xun baa u timiday baa la yidhi shaydaanka ku soo dharbaxay ile haweenku waa xadhkaha shaydaanku ku ugaarsadeen markaasay si walba ay isku hordhigtay oo wuxuu yidhi wallahi gabadh qurux badan baa tahee baliikaadii buu yidhi naftayduna way ku yar damacdo way ku doonaysaaye bal iyarkaadii buu ku yidhi haye iyadii markaa tamac baa galo waxay leedahay ninkani xaajadaada uu ku gudayaa deedna way ag fadhiisatay agtiisa markaa dab baa ka shidmaaya fartaa intuu qaaday baa ladhay uu dabkii geliyey qof bini aadanoo dab holcaaya fartiisii geliya ka warrama markaasuu si ruubay way dhammaanaysaa dabkii fuuqba ka da'aya fartiisii isagii ma nixine iyadii baa naxdoo gacanta qabatay baa layidhi maxaad naftaada u gubaysaa wuxuu yidhi markaad ii timiday tamac baa igalay buu yidhi tamac bini aadan baan ahee marka naftaydii baan bal ku eegayoon lahaa haddii aad naarta adduunyada aad u adkaysatid naarta aakhirana si uun bahla yeelaya xaajadaada waan kuu gudi taasaan ku lahaa buudhi markaabay tidhi oo mas ku sii wadi haa waan ku wadi buudhi ilaa ay odhanaysay ka baxsanayso waan ku sii wadi buu yidhi markaabay tidhi haddaba naftaada ha gubini anaa kaa tegee iska cibaadayso salaamo bay ku tidhi khawf naarta adduunyada haddaad u adkaysatid buu ku lahaa nafay ta aakhirana hadhow si unbaa la yeelin dee ma u adkaysan kartaa may naarta adduunyada nebigu waa kii xadiid ku lahaa 70 qaybood marka jahannamo loo qaybiyo kulaylkeeda waa qayb ka mida buu nebigu xadiid ku yidhi qaybtiiba adduunka loo soo saaray oo waxa adduunyada yaalloo dhan khalqi ay ku intifaacayaan dab hadduu magaalo qabsadana ka warrama siduu ka dhigaa waa dhawata waa kay soo geliyeen waxaan tawaasul al-ijtimaaciga Australia wixii qabsaday waad arkaysteen laba geed baa sidaas ku taabtay laba geed wadan dhan baa ku gubanaya Turkiya kadalika waa la tusay Maraykan sanad walba way ka dhacdaa gobolada la yiraahdo Philadelphia way ka dhacdaa ma ilaahay ma badaayay iyo California fi kulli sana aayad baa la tusaa gaalada aayad laakiin ilaahay kuma gartaan iyagu waxay koranayaan waa tabiici wax walba waa natural dabayl baa timidayo geedkan ay qaado geedkan ay ku xoqday ku oranayaan ilaahayna waxa uu leeyahay wama nursilu bil ayati illa takhwifa ayat bani aadamka ma tusno uma dirnaba ilaahay yidhi illa waxaan uga jeednaa bani aadamka inaan ku cabsi gelinaba ilaahay gaalkii iska daaya muslimkii baa kale wax walba waa tabiici imika war wax tabiici ma jiraan ya sheekh wax walba ilaahay baa abuuray adduunka isbedel hadaad ku aragto ilaahay baa keenay marka qofka muslimku waa inaad marna cabsootaa oo tiraahdaa warniyo haddii aad naftanay dambigan iyo macsiyadan aad igu yeedhaysaa iyo cadaabka aakhira ma u adkaysan kari waa maya
daacadda ilaahay marka lagugu yeedhayana bay culimmadu leeyihiin ku xisaabtan ma artaana jannada. oo nabigeenu calayhi salaam saxaabadiisa marka uu daacadda uu rabo inuu u tilmaamo uu dhiiri gelinaya nabigu asxaabtiisa. qaswatu badr bahad qumuu ilaa jannatin arduha as-samaawaatu wal ard ukacabu nabigu janno loo diyaariyay janno baacigu leegaya toddobada ciriya toddobada dhul la isku xidhay. Umar ibn Hamaam al-Ansari saxaabiga la oran jiray baa yidhi bakhin 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 markaa buu nabigu ma yaxmiluka can qawlika war maxaad bakhin bakhin un Allah haysa maxaa ku helay rajaa'an an akuna min ahliha jannada aad noo sheegtay ehelkeeda inaan ka mid noqdaan rajaynaya buu ku yidhi. markaa buu nabigu yidhi fa innaka min ahliha ehelkeeda aad ka mid tahay buu nabigu ku yidhi. salaadii subax ayuu arkay saxaabadu kadib dhacaysa waxau nabigu yidhi man salla albardayni dakhala aljanna labada qiibo ninka tukada jannaduu galay. salaadii cishaay buu arkay iyagoo kadib dhacaya walaw yaclamuuna ma fi alcatamati waasubxi la atowhuma walaw xabwan buu nabigu yidhi hadday ogaan lahaayeen munaafiqiintu salaada fajarka iyo salaada cishaay khayrkii ajarka ku jira way iman lahaayeen iyagoo barida ku shaqayn hay noqotay buu rasuulku yidhi. markuu nabigu ummadda uu rabo khayr inuu tilmaamo amar ma sii jirin inta badan wuxuu oran jiray waxau nabigu u tilmaami jiray khayrkan waxa laga helay buu nabigu sheegi jiray. maxaa laga helayaa quraanka maxaa laga helayaa sadaqada maxaa laga helayaa qaraabada xiriirinteeda maxaa laga helayaa waalidka loo samafalo rida Allah fi rida alwalidayn ninkii doonaya ilaahay inuu raalli geliyo labada waalid ha raalli geliyo buu rasuulku yidhi bal warid Allah ilaahay inaad raalli geliso haddaad doonto ilaahay inuu raalli kaa noqdo waalidkaaga raalli geli. qaraabadu nabigu doonay in la xidhiidhiyo muxuu yidhi man habba an yubsada lahu fi rizqihi wa yusa'a lahu fi atharihi falyasir rahimahu ba nabigu ninkii doonaya inuu arsaaqada loo beeriyo cimrigana loo waasiciyo qaraabada ha xidhiidhiyo buu rasuulku yidhi. sadaqadu damcay inay asxaabtu bixiyaan waxau yidhi sadaqatu sirri tudfiu ghadab ar-rabb sadaqada sir loola baxa cadhada ilaahay bay demisaa buu rasuulku yidhi. acmaal markuu nabigu doono ummadda inuu dhexdeeda uu isku xidhana dowlad cajiib ahay dowlad nabawiya inna min afdal a'maalikum ba nabigu yidhi inna min afdal a'maal inna ahabba al-a'maali 'inda Allah idkhaalu sururi fi qalbi mu'min amal laqabto ilaahay loogu dhawaado wuxuu ilaahay ugu jecel yahay mu'minka oo laga farxiyo buu rasuulku yidhi. markaa buu nabigu sii sharxo wuxuu yidhi ashbacta jawcatahu mu'min gaajoonay aad aragtay cashasi dherg satarta cawratahu ceeb walaalkaa u leeyahay baad aragtay haddaad u nasteexayn isaga gaar ugu nasteexee laakiin mujtamaca dhexdeeda ceebtiisa ha ku sheegin. iminka zamankeena xaadiistaas ayaa ku dhaqmaba nin walba wuxuu ceeb arkay baalkan la soo hor fadhiistaa social mediaga ummadoo dhan buu sheegayaa ceebta walaalkii uu leeyahay. yowma alqiyaama adiguna maxaad u malayn markaa sideed ku badbaadi doontaa laa yasturu cabdun cabdan fi dunya ilaa satarahu allahu yowma alqiyaama buu nabigu yidhi addoon walaalkii ceeb uu arkay uma qariya buu nabigu yidhi ma asturo ilaa isagana ceebihiisa banka qiyaama lagu asturaa buu rasuulku yidhi. maalinta haddaad walaalkaa ceeb u leeyahay adduunka dusheeda intood aragto ayaad cidna uma sheegina waad asturtay laakiin isaga gaar baad ugu nasteexayn ogow. astur macnaheegu maaha ceebta ha uga nasteexayn maaha naseexaduna inay fagaaro noqoto maaha gaar baad ugu nasteexayn waxaad leedahay waxaasaan kugu arkee sharaftaadana maahay nin muslim oo mu'minaad tahay ka waanto oo ilaahay u soo noqo u toobadkeen. dad gaar ugu nasteexayso naasix buu ku arkay uu ku jeclaan oo dadka haddeetul adu kaa soo dhawaysan laakiin ceebta walaalkaa uu leeyahay haddaad fagaaraha dhigto oo waxaan tawasul ijtimaaciga leeyahay aad soo bandhigto waxaad cadowgiisa noqon koobaad oo magaalada iska eego. halka uu nabi maxamed in leeyahay u fiirso satarta cawratahu mu'minka ceeb uu leeyahay aad aragtay soo maaha waa la qariyaa waa la astura qadayta lahu xaaja muraad
ولها بعد أقوم السودر رعدي بعض الشفاعات قادمة كسوقات مال بدين لقالها ورملوك هذه بلو قدرة وكين الدوناي لا بس ولا لو سياسات نحن حادثون تري وانك ولا قردري هي كدا يضل بقي قردرة ورادق الواد قردرته ومدى قردرة كدا فاتري صلاح حاجات بني آدم وسكون بحين ما كلام مرة قف بني آدم أخلاق ذا إسلامي قال النبي محمد مركو ربي ومدو إني لا تبعضو لعقب هلس النبي قمور نوح يدي وعمل لقبته إله يكتي صلى وقود وهذا وحي إلهي وقود جعل يعي قفك مؤمنك أولا قفر حيو مركز دين تيناسي ودين وحوال بينه عديس أدو يداد آخر دادي ربي جيكو أبو حقيس حقوق ذا بني آدك ilmaha xaqu kugu laha hooyay aab xaqay kugu lahaayeen jaarku xaqu kugu laha saaxiibka xaqu kugu laha dariskaagu xaqu kugu laha walaalkaaga weyn xaqu kugu laha walaalkaaga yar xaqu kugu laha shariicadana ay noo sheegtay hadda dadku sharciga qaataan ay ku dhaqmaan qofna qof jeeri maayo war gawaarida wadooyinka loo kala sameeyay xeerka hadduu nin walba ku socdo ka waran magaaladu si fiican ba u kala socon laakiin baabuurkii haadkan maray hadduu haadka soo ku soo dhaca ka warrama maanta mujtamacu waxa weeyaan markaad eegto waa la haystaa maanta maxaa la isku haystaa waxa la isku haystaa gaadhi walba haadkii loogu talagalay buu ka dhacay yaa kala qaban markaa ummadii maanta muddo 70 sano ku dhow ama 80 sano ama qarniba gaarsiin dawladii nabi maxamed uu taagay waxay ku taagnayd inuu qofka kale walaalkii xaqiisa iska ilaaliyo دولة بوليس كده شغيلة كورما جلدت قال له حرنا على الحين محكمة دي عدتي مع دلوا لما قفوا يستوالوا واي قف دلي السجا إسكانية قف وحده السجا إسكانية قف قدام بكده عيسجا إسكانية مالنتي اللي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما حكم كمان أنت أسودقي إلى أفر قرني بعلماء هذا مركز دي بلو صون نقضه dadka tuuganimo gacanta looga jaray 15 ruux oo kaliya noqdeen baa la yiri 400 oo sanadood dawladda islaamka marka taariikhdeedii dib loo eegay dadkii tuuganimo intoo la soo qabtay tuuganimo gacan loo gooyay tuugnimo gacanta looga gooyay markii la tiriyay 15 ruux oo kaliya noqdeen لأن عدالته وتإلهي ويا تإلهي هدي الراعو أدوك دبك دعميس ما أنتنا تولو يرباتك يا تولو بعد أقول لك كبيه مسكين كنن باك حدي وتولو لما بقولوا يسكن وشال أقول لك هاي كبها كباع كسر ردو حقه هردقو الكورة جماعات كدعوة وكون جولات كسبيان وقتها لها مقاحية لقو قيلة جماعات باكستانيين أمريكا نوتي بديو oday baa ku yiri marka anagu boqolkiiba islaam baan maxaad naga soo doontay buudi wuxuu boqolkiiba islaam baatiin in Pakistan iyo caalim oo xikmad badan buu ahaa oo muftiya oo madaaris aad u fara badan nahay wuxuu boqolkiiba muslim baatiin oo ognahay waa ku faraxsanahay laakiin boqolkiiba muslim baatiin maxaad kabihiin masaajidka dibadiisa ugu soo dhaaf weydeen buu ku yiri kaba ayaa laga ilaaliyaa bal sheegay نبى مالين مساجد بانقلي بيودي جمعي هراء إيجا بحي جمع اللباد بان مركا أركب بيودي مركا مد أنو إيجا مساجد وينو جامع أبوها وجموتو كي يلا مد بان مركا يقولي جمع لبدا قفاي مكاسكو حدته لحدو مركا سانا لحد بيودي كبا هيجي ميل أن يقف وينو هالكاسان دقي بيودي كبير عصب وصندلا صلاة مرة اللي مركا حدي بان أركب ركبت يديو كبتيو قعسي قاديسو واسكو ديبر صلاة دي صفكينا او ديراداي صلاة دي مرة اللي مركا السلام عليكم يا كبحي يان كبهي بان واي مركاسا وان ايغي وان واي قفكو سي بحي وان واي ku kalo ugu ag tukanayay ana kabahay ma hayo ku malaha shan lix qof baan noqonay safka oo kaliya dadkii kaba hogi waayay nin marka masaajidka xaaris ka ahaayo ilaalinaya xagga dambe maxaa ni helay warshadeedaba kabi wala naga qaaday
markaasa nin baa yidhi labadan dadka way sareen buu yidhi allah ka qabto kii ku tujinayay kii ni tujinayay iyo kii ku tilmaamay shaqa ka wada dhaxaysay buu yidhi maxaa ka dhaxaysa bal sheeg wala fiirso iimaankeena halkaa buu maraya ka warrama in masaajidka dhexdeeda dadka loo rakibo ruwaayada loo rakibo kaba dadka lagu xado داخل المسجد marka aad baa dadku maanta uga fogaadeen diinta barashadeedii hadday tahay oo laga fogaaday ku dhaqankeegina lama bahayaba marka dadku inay diinta ku dhaqmaan nabi culimadu leeyihiin iimaan baa loo baahan yahay qofku diin inuu sheegana aqoon buu u baahan yahay qofku inuu diin baro dad wuxuu u baahan yahay cilmi laanna cilmi lama ummadda wax bari karaa laakiin qofku inuu diin isagu ku dhaqmo iimaan buu u baahan yahay zamankaas aan ka soo hadlayna qarnigii koobaad kii labaad kii saddexaad maxuu nabigu yidhi qurunta qarniyadaaba ugu khayr badan qarniga koobaad uma ka ku xiga laanna qarniga ummadda seeska laga dhisay seeska iimaankoogaa la dhisay aqoontoodaa la dhisay akhlaaqdoodaa la dhisay dhaqankoogaa la dhisay oo 23 sano nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam waxay reerihiisu bilaa masaariif u noqdeen uu nabi maxamed isaguna uu adduunyada sida inagu aan u haysanno uu u waayay inuu u haysto uu karayay laane waxuu nabigu u daseegay uu u tabcay ee reerihiisana maaragtaan rafaadii ciriiriga ugu noolaayeen iyo cunto la'aan wax kale ma ahayn ummadu mu nabigu laha ka taga adduunyada dusheeda ummad kaga tag ummad ilaahay taqaana oo nabigeeda taqaana oo akhiradeeda taqaana oo diinteeda taqaana oo iyadu istaqaana ummadda buu nabigu laha adduunka ku beero kaga tag ficlan nabigu ummadna uu ka tagay adduunka dusheeda ummad is haysata buu nabigu ka tagay isku duuban ummad kooga madaxa ilaa kooga mijaha ugu hooseeya lagu tarbiyadeeyay ilaahay ka baq oo ilaahay xaqiisa ilaali oo xaqa bini aadanka iska ilaali oo kooga madaxnimadiisa uu ku cadaalad falay bay ahayd kooga maalqabeenka maalkiisa uu ku cadaalad falay kooga faqiirka faqrigiisa uu ku sabray kooga caalimka cilmigiisa ilaahay buu kaga baqay kooga magaalada jooga magaalaha hadduu joogana reer magaal baan ahay ma odhane magaalo joognimadiisa ilaahay buu kaga baqaayay kamiiga jooga baa joogaayo cidna ay arki maysa waxaan doona samayn isma dhahayne miiga uu jooga buu odhan jiray ilaahay bay arkayo ay maqlaayeen ummad lagu tarbiyadeeyay ilaahay bay arkaayeen ilaahay bay maqlaayeen marka innakuna walaalayaal maanta waxaan aad ugu baahannahay dad badan zamankan waxay yidhahdaan wanoo dalka ha la dhiso oo dhulka ha la dhiso oo wadooyinka ha la dhiso oo muslimiintu maanta caalamka dad aqalla u dhiso uma baahno dad warshado u dhisana uma baahno dad wadooyin u sameeyana uma baahno waxa ka horeysa waxaasoo dhan waan u baahannahay laakiin waxa ka horeysa in dadka bini aadanka la hagaajiyo in dadka la dhiso oo dadka maxaa lagu dhisi dadka waxa lagu dhisaa waa iimaanka dadka waxa lagu dhisaa waa diinta dadka akhlaaqdooda waxa dhisa diinta qofka dhista sheekha culimadeena kamid ah ayaa maalin mawduuc cajiib ka hadlay wuxuu yidhi nin gaala oo qoraaya yaa buug qoriyay ilmihiisii baa mashquuliyay wuxuu damcay ilmahan inuu isaguna iska mashquuliyo khariidad caalamku ku qoran maab waad fahmaysaa khariida sooma iyo soo qaaday uu jaxjaxay uu kala daadiyay wuxuu yidhi aabba khariidada sideedii ku soo celi waxaad doontaan ku siinay waa ilmo yar ismale uu isku keeni doonaa markiiba intuu qolkan la galay buu ilmo yar isku keenay uu soo koolay kool buu soo mariyay scotch markiiba uu keenay aabihii wuxuu mooyada baad ula tagto ku sheegtay may ana sameey ma walaasha baad ula tagtay iyada jaamacada dhigato taqaanay wadanadu si isku xigaan oo isku keentay may aaba ana sameey iyo sidaad u garatay sheeg waxaan ugu talagalay hayd buu yiri saacadan dhan inaad igaga mashquusho anigu intaan wax qorayna ma wax akhrinaayo wuxuu aaba xaqan baad adigu eegtay caalamku maabka caalamku ku sawirayay
xagga kale sii jeedka qof bini aadana ku sawirnaa buu yidhi da qofkii uman isku geegayay buu gacantii lugtii xaggan soo ma hadde xagga markay sax ii noqoteen isku dhajiyey xaggii dambana waxay noqonaysaa sax ninkii qoraabu ahaa wax qoraya buuq dhan buu ka alifay baa layidhi wuxuu yidhi caalamka in la hagaajiyo waxaa ka awlaysan in bini aadanka horta la hagaajiyo hadday bini aadanku hagaagaan caalamkuna marka bini aadanka maxaa hagaajiya markaa bini aadanka diinu baa dhista marka dalka in la dhiso waxaan uga baahi badannahay dadka in la dhiso waana meeshii nebi maxamed uu ka bilaabay calayhi salaatu wasalaam wallaahi dadku hadday dadnimadooda inoo soo noqoto noloshii hore baadiyaha maan ku noolaannaa innakaa dadnimo fiican haysano ummadda ugu sarrayna ogaada maanta nin walba haddii la weydiiye adigii aabbaha midkee fiicnaa muxuu odhan maxaad odhan aabba iga fiicnaa aabbaha haddii la yidhahdo aabbo adiga iyo aabbaha midkee fiicnaa xagga dadnimada muxuu odhan aabbahay baa iga sii fiicnaa innakii ubadkeenna ka warrama markaa aabbayaasheen teknolojiga innaku aan soo gaadhna may soo gaadheen laakiin maxayna kaga fiicnahay bal sheeg mar waxaa soo martay magaalada hargeysa soomaha gaadhi keliya la wadan jiray soo maha maantana baabuurtii meel aan ka marnaan ayaan laa dhahay aalaadkii ashyaadii materiyaalkii innaka ka badan innaka xaggeenna waxaan helaynaa wixii nolosha fudaydinaya baan haysanaa maanta innaku laakiin aabbayaasheen waxay nagaga fiicnaayeen way naga dadnimo fiicnaayeen run sheegayaal bay ahaayeen dad waxay ahaayeen xaqa ilaahayna yaqaana xaqa bini aadankana iska ilaaliya dad waxay ahaayeen naga dadnimo fiicanoo martiday jeclaayeen innaka maanta marti hadday ku timaado hoteelkaad geyn maqaaxidaad u tilmaami iyaguna martisoorka miyaa lagu gaadhi jiray may waxaan ka wadaa macnaha war aalaadkan iyo ashyaadan inoo badatay horumar haboodina horumarku waxa weeyaan dadnimadii horan ku noqona dib alla ka cabsigii la isjeclaado oo diinta la isku tixgeliyo oo da'da la isku tixgeliyo oo islaamnimada la isku qadariyo oo muslim qofku waa walaalka muslimka kale waa walaalkii marka inaan dadka dib u hagaajinno maanta wadabtii dhallinyaradeenni mujtamaciin halkay marayaan maanta waxba gacanta inooguma jiraan ha eegin intay masaajidda soo camiraysa ha eegin 95% mujtamaca gacanteena kuma jira maanta maskaxdeennii dhallinyaradeenni maskaxdoodii waa la qaatay mukhadaraad baa meel walba laga soo geliyey maandooriyaha waxa ka sii daran maskaxdoodii kulama joogtaba adiga maanta meesha keliyanu maanta ummadda ku islaaxin karnaa bay culimmadu leeyihiin war xagga diinta ha loo soo ordo oo masaajidda ha lagu soo noqdo oo barashada diinta ha loo soo noqdo oo waxaan dad ku noqonaynaa waa diinta dadaalkeega yaan culammada keliya lagu dhaafine iyo jamaacadda gaara diinta dadaalkeega yaan lagu daynine diinta madaxdeenna majaheenna dhallinyaradeenna odayadeenna ganacsatadeenna maalqabeennadeenna diinta xil baa inaga saarayna diinta dadaalkeega ka qayb qaadanno insha allah dhacda yaa niyooda insha allah wala tashkiilka maan ka daynaa ku dhifanaynaa wala ijtimaaci Djibouti baa nagu soo dhawee waa noo imanaysaanu soo maaha Djiboutina dalka lama aha waa dalkeennii uun xuduuduna annaka nama khusaysaba annaga jamaacadka dacwadda iyo culummada xuduud may khusaysaa nama khusayso isticmaar baa xuduudda sameeyey gaalaa samaysatay danahoogeena u samaystayna danteenna maaha can qariibna waxaan rajaynaynaa ilaahay jalla wacala inuu na tusin doono ama inaku haddaan arkinna la arki doono dowladaha islaamka isku furmay nebi maxamed baana bashaariyey taay ogow laa maxaala wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa waxyi buu nebi maxamed ku hadlay waxyi wallaahi xuduud u dhaxayni maysa dowladaha islaamka summa wallaahi baan ku dhaaranaya fa insha allah han dadaalna oo